waa kulan kale oo xiiso badan halkan waa adduunka media group waxaan idin soo gudbinaynaa muuqaalo xiiso badan oo idin xiiso gelin doona kuwaasi oo muhiim idin ah idinku haddii aad jeceshahay daawade fadlan rukumo channelkan oo subscribe saar asxaabtana la wadaag mahadsanid markii ay ku dhaxday xaas leh dabci iyo sidoo kale dhaqan wanaagsan iyo markii aad habeeno badan ku caweysatay cidlo waa laba farqi oo kala duwan waxa ayna kala jiraan koonfur iyo waqooyi bari iyo galbeed balse warbixintan ayaan ku eegi doonaa daawadayaal labadana qof sanduuqyada nolosha halka ay kaga jiraan iskaabulinimadu waa marxalad culays badan oo soo wajahda qofka dhalinyarada oo da'diisa lagu sheego 15 ilaa 25 sano jir ku dar waa caqabad kale iyo sidoo kalena xaalad kale oo culays badan oo qofka dhalinyarada uu ku dhiirado in uu sameeyo ficilo lama filaan oo ku saleysan xaalad deganaansho la'aan ah waa nolol kalinimo ah oo si sax qofka uusan u ogeyn xilliga uu ka bixi doono inkastoo ay jiraan rajooyin waaweyn oo qofku u higsan karo markii aan u eegno culeysyada qofka dhalinyarada soo wajihi kara markuu xaaladda iskaabulnimo ku jiro waxa kamid ah ku daahid saa'ida goobaha lagu qaxweeyo socosho waqti dambe markii aan u eegno oo habeenkii ah iyo sidoo kale isticmaalka baraha bulshada oo iyadoo waqti dheer lagu gaaro iyadoo aan la haynin wax faa'iido oo kaga iman karta halkaasi sidoo kale waxa kamid ah fara ku fiiqid sidoo kale in loo fuuriyo gabdhaha maraya xaafadaha wadooyinka inkastoo ay jiraan dhalinyaro boqolay ahaan in ka yar laga heli karo astaamahaas sidoo kale waxa jira weydiimo qofka kaga yimaada qaraabadiisa sidoo kale asxaabtiisa oo ku saabsan goormee xalwada nasiinaysa iyadoo dhowr jeer laga yaabo in qofku isagoo faraxsan aba dhool cadeyn uu kaga jawaabo goordhow ayaan idin siin doonaa bal markan haddii aan galno jawi ka duwan kii aan ka soo sheegnay ee xaaladii iskaabulnimada ahayd nolol isfaham iyo sidoo kale dhaqan wanaagsan asal looga dhigay waa mid ka mid ah heerarka ugu wanaagsan ee qofka markii aan eegno uu ka gaaro noloshiisa habmaamuuska iyo sidoo kalena dhaqanka wanaagsan iyo maaraynta qoyska waa sifo kale oo iftiin sidoo kale rajooyin qurux badan markii aan u agnasiinaysa lamaanaha wada nool ee isku qanacsan inaad ku jirto jawi deganaan oo nololeed ka warqabid gaar ah haddii ay ahaan lahayd cuntadaada udug iyo sidoo kalena caraf ka soo baxaysa halka aad ku wada nooshihiin ka warqabid arrimahaaga gaarka iyo sidoo kalena dhoola caddeyn iyo soo dhoweyn farxadeed hubinta qaabkaaga markii aad doonayso inaad ka baxdo guriga iyo sidoo kalena in la iskaamil yeelo iyadoo la wadaagayo ra'yi talooyin iyo sidoo kalena waxyaabo kale oo muhiim ah lamaanaha ku wada nolol qanaaco leh xaaladihii aan ka soo sheegnay haddaba daawade marxalada kala duwan ayay ahaayeen marka adiga bal isweydii qaanadee ku jirtaa